waxaan rabaa inaan idin yara iftiimiyo ujeedada safarkayga iyo ujeedada caawa idin hor fadhiyo. marka lagu yiraahdo boorama qof ka yimi cadaada jooga waxay waa runtii waa wax qofku isweydiin karo qofkan ujeedkiisu muxuu ahaa muxuu socday muxuu damacsanaa waxyaabo noocaas. safar waxaan ku jiray aan ugu magac daray nabad iyo jacayl ama peace and love. safarka magaciisa ama halgudhigiisu marka ugu horeysa kaasuu ahaa wuxuu ka soo bilaabay magaalada Boorame. waxa ku xigtay magaalada Boorame ee Soomaaliland, waxa ku xigtay Hargeysa, waxa ku xigtay Berbera, waxa ku xigtay Burco, Laascaanood. dabeetana waxaan nimi bishii saddexaad toddobadeedii baa waxaan nimi Garowe. waxaan tegay magaalada Ayl sidoo kale, Boosaaso, Qardho, Buuhoodle, Sanaag, magaalooyin badan oo kamid ay ka mid yihiin Dhahar iyo Badhan iyo Hadaaftimo iyo magaalooyin noocaas ah. sidoo kale waxaan tegay Buuhoodle iyo magaalo la yiraahdo Xudun oo ka tirsan gobolka Sool, laakiin tirsigii uu hore taariikhdii 60kii meelaha ka tirsaneed nugaal ka tirsanayd. waxaan nimi magaalada Gaalkacyo oo jimcihiisii barnaamij ku qabanay. Gaalkacyo waan ka soo gudbay oo maanta cadaada jooga. haddii Allah awood leeyna waafajiyo waa sii socon doonaa ilaa Kismaayo, ilaa Baydhabo, ilaa Xamar ayaan ilaa Beledweyne intii Allah awood leeyna waafajiyo ku sii socon doonaa. ujeedada safarkayga nabad iyo jacayl wuxuu ahaa isdhexgalka ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed. ujeedkiisu wuxuu ahaa in dhalinyarada aan tusi karno in wadanka la tagi karo meel kastoo aad u baahan tahay. qariib kuma yihiin magaalada Cadaado sababtoo ah waxaan ka imid dhul Soomaaliyeed, waxaana joogaa dhul Soomaaliyeed. waxaan ka imid dhul aan fahmayo ka ugu yar ilaa ka ugu weyn wuxuu ku hadlayo, waxaana joogaa dhul aan fahmayo ka ugu yar ilaa ka ugu weyn wuxuu ka hadlayo iyo wuxuu u hadlayo intaba. sidaa daraadeed qariib kuma noqon karo dhul Soomaaliyeed intaan marayo, laakiin martina kuma noqon karo runtii oo waddan aan leeyahay iyo dad aan ka dhashay oo aan dhex joogo, labadaasay noqon kartaa. ujeedada safarkaygu kaasuu ahaa. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dalada dhalinyarada Galmudug oo aan jeclahay inaad mar igu sacabaysaan gudoomiyaha Caruuse oo isagu Ilaahay ka soo suurtageliyay in halka imaado oo ay casumay anigoo magaalada Gaalkacyo jooga casumay sidii aan magaalada u iman lahaa. waan tixgeliyay dalabkiisii sababtoo ah inaan saaxiib nahay, waqti dheerna aan isnaqaanay. aniga lafteedana safarkaygu inaan Soomaaliya arko uu ahaa. waxaan la heli karin marka lagu yiraahdo magaaladeedii baan kugu casumeeyay kaale. dabeetana intaan shidada soo qaatay xataa dharkayga qaar baan ka iman laga soo daba diray waan imi magaaladaani. dalada dhalinyarada Galmudug way mahadsan tahay iyada ujeedka lahayd inaan magaalada imaado. marka ujeedada maansada baan idin dhexgeli doonaa. ujeedada aan safarka ugu yimi iyo ujeedada aan soconayay intaasay ahayd. cidna kharash iguma siiso, cidna lacag iguma siiso intaan magaalo aad marayay. waxaan magac ahayn iyo waxaan dad ahaynna kamaan faa'iidin sababtoo Cadaado intaasoo qof baan ka bartay. adduunka waxa ugu qiimo badan dad aad barato. waan ku faraxsanaa magaalo kastaan tago dad baan baranay, magaalo kastaan tago dal baan baranay, magaalo kastaan tago waxyaabo aan hore u arag baan baranay. waan ka waaya aragsanahay dhalinyaro badan oo lodkayga maanta sababtoo intaasoo gobol ayaan hal sano gudahood soo arkay. maansada dal jacayl ayaan dhexgeli doonaa. maansada waxaan curiyay bishii 6aad sanadkan ay ku guda jirno. waxaan joogay magaalada Ceergaabo oo aan ku ciiday oo safarkaygu bay ka mid ahay. ciidii haddan ka horeysay baan waxaan go'aansaday inaan magaalada Ceergaabo ku ciido sababtoo magaalada Ceergaabo waxa ku hareeraysan dhul badan oo loo dalxiis tago. maskaxda qofka bini aadanka marka doonayso inaad jir ahaan u korisana maskax ahaan aad doonayso inaad u kortana waxa loo baahan yahay inaad jawiyada bedelato. waqti badan baan Boorama ku ciiday, waqti badan baan ku ciiday oo dad badan oo aan garanay maalin kasta la ciiday. waxaan ku fikiray inuu meel ka duwan meeshii hore aad ku ciidi jirtay iyo dal magaalo ka duwan magaalada hore aad ku ciidi jirtay iyo dad ka duwan dadkii hore aad la ciidi jirtay. bal la ciid si aad waayo aragno adiga laftaada uga faa'iido. Ceergaabo tegay safar ilaa 400 kiiloomitir aan galay. habeenkii ciidu soo galeysay
habeenkii ka horeeyaan waxaan ka soo baxay qarro oo aan ka imi habeenkii isla habeenkii waxaan dhaafay magaalada Garowe toos waxaan u seexday Burco subaxii baan ka kalahay habeenkii ciidda waxaan joogay magaalada Ceergaabo subaxiina waan ciiday subaxii haddaba markaan salaada tukanay ayaan safar galay marka aniga dhalinyaro kale waxaan tagnay meel yaraado dowga tabca waa meel aad u qurux badan waa meel buuraley ah horta buuraley ha ahaado aad bay buurihiisu u dhaadheer yihiin fadkan aynu aragno laftiisa uunbaa idinkala dhex gelaya qofka buurta xagga sare jooga iyo qofka buurta xagga hoose jooga isma arkaysaan fadka aynu arkayna idinkala dhexaya meesha la marayaana runtii waa meel gumaystigii uu baneeyay oo waa buur aan loogu talagelin in la maro laba gaari iskuma dhaafi karto haddii gaari xagga sare ka yimaado gaarina xagga hoose ka yimaado dabeetana ay dhexda ku kulmaan dhibta kaliya jirta waxa weeye labada gaari inuu mid noqdo oo bartii uu ka soo dhaqaaqo uu ku noqdo tusaalaan ka sare inuu noqdo oo halkii uu ka soo dhaqaaqo ku noqdo ama kan hoose inuu noqdo oo bartuu ka soo dhaqaaqo ku noqdo iskuma dhaafi karayaan haddii wax kasta dhacaan halkaasaan joognay marka subaxii baan habeenkii baan seexanay subaxii labaad ee ciidda maanta oo kale yaa waxaan kacay hiirtii hore 5tii subaxnimo 12 saac oo taqaanay ayaan kacay waan lugeeyay ilaa 3 kiiloomitir oo buurta aan saa u lugeeyay marka inaan baa marka sanqadheeda ku kacay xaga tigaysaa way igu yiri waxaan hore u maqal iyo waxaan hore u arag baan rabaa inaan soo arko wila yaabay marka waxaan hore u maqal iyo waxaan hore u arag wixii malaha mahdigi baa ku horeeyay oo loo yeedho odayga ka daba baxa in markaan soconay waxaan ninkii oo iga dambeeyay masaan ku raaxo socdaa waxaan rabaa waxaan soo aragtay inaan kula soo arko inamari waan ku marka haddaad ila fahmayso haddaad ila fahmayna anaa ku sheegay sanqadha dhirta dabayl yar baa dhacaysay marka sanqadha dhirta iyo dhawaaqa shimbiraha iyo jawigoo aad u deganaa iyo dhada yaroo da'aysay dhada soo garanaysaa iyo dhada yaroo da'aysay oo qoyaan ah layr yaroo dhaxana oo feedhahaaga runtii durbaanka garaacaysay baa dhacaysay marka waxaan qaadan waayay dhul Soomaaliyeed inuu saa u udgoon badan yahay dhul Soomaaliyeed inuu saa u qurux badan yahay dhul Soomaaliyeed maskax ahaan iyo jir ahaanba inuu saa qof ahaan aad ugu degayso dabeetana maasadan dhalinyaradan kula dardaarmaya waa gobolada Soomaaliya ayay ka sheekaynaysaa gobol kasta waxyaabaha aan ku arkay intaan tegay waxay tiri dareenkayga nugaal qardhiyo ku degaaya ayl dalxiiskayga burciyo sanaag daale iyo hawd boorama igu sii durkiya xiskayga doortay xamar kismaayiyo bari dalbaday inaan baydhabo degiyo hargeysaan dooran la haddii la dhaho dawaaf halkay gobonimo dul taal cadaadaan u dooran la dar alle bay iyo bakool dubaaqaygaa ka hela sanaag caradeeda dihin dhulkiyo geygeeda duxan deegaanada bilicda wacan daqiiqad naftaan ka dhixin inaan dego saylac iyo waxaan ku dadaalayaa inaan da'yartii togdheer ceel sheekh ku dabaalanno xeebtii boosaase degan damaashaad ugu baxnaa dugsigii cilmi boodharee dadkoo idin raadiyaan ayaan darsiyada cishqiga berbera uga doonan lahaa deeqduu rabbi keenay iyo laasgeel daymada u roon ayaan door xuli lahaa dusheedaan gacan libaax laasgeel iyo gacan libaax iyo ceel sheekh waa 3 meelood oo aad loogu dalxiiska aad ugu fiican dhammaantood waxay ku yaalaan Somaliland laasgeel waxay ku taalaa berbere iyo halka u dhaxaysa Hargeysa gacan libaaxna xagga hawdka looga baxaya magaalada Hargeysa ceel sheekhna waa meel xeeba iyaduna oo waxay u dhaxaysaa Owdal iyo Maroodi Jeex bay u dhaxaysaa oo meel maalmo dhowta xataa la isku haystay oo inay gobolkan ka tirsantayna gobolkan tirsantahay saddexda waa meel aad u qurux badan runtii waan soo arkay dusheedaan gacan libaax doog iyo quruxday lahayd deymada uga buuxsan lahaa indhahan basanbaas ku dilay quruxda sheekh bawdawa ah maydhiyo xiisba u dufana duxdooduna jawhar iyo calmadow bay daadsan tahay fardaha dhaharee dultaga siday u diyaarsan yihiin dadnima mudug lagu yaqaan
afgooyaan ku diirsadaa intaan gabiley ku dego ayaan dawgii tabciyo diyaarad u raaciso anoon daalayn haddana buuhoodaan u duulaya haddana waan soo dib noqon doogii biyo kulule iyo laasqore ku dekeynaya haddana ii soo durkiya dalxiiska sacaadadiin damaashaadkii hobiyo jamaame dadkiisa bilan xaafuun ma dibdhigi karee miyaan dahab iyo adduun ku doorsan karaa taleex hadaftimo dahabsanay dubkaygii baa tahee sidaan kuu dayn karaa raxmadda badhan daadsanay adaan ku dareemayaa jariiban ma dayrin karo ceelbuur dabcan waan jeclahay carmiyo ceel daahir baan durdurki laag uga gudbiye maxaan dal shisheeye iyo naf yahay dulinimo ku fali anoon dawarsanin cid kale waxa aan diyaar u ahay dalkayga inaan dhistoon dunida ku dhex yeesho sharaf maasada dal jacayl ujeedkeeda iyo aragtideeda aan uga dal lahaa intaasuu beegay